مسؤولين تمام كهير قبل يدقموا بعرقة ومدحنا عيدا مدى قلب كسيدا مدحنا قمادي مسؤولين كلا أي سر صحافة كوقبتين حرمت الدولة هو سيد مدى عرقة وحيوقوا هرين حكومة الصريع السومالي دوقم هدي علي الروق عقارن أو لو تلقى لي قرون كعيارها دالة استاديوم مقالة عرقة واللي سوق قارسيي sidoo kalena waxay taasi tiiraanyada halka uga direen geerida ku timid Allah uu naxariistay barasaabkii gobolka Badhan ee Sanaag bari marxuum Cabdixakiin Wahaabi oo habeenkii xalayto ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur boqor Maxamed Nuux Aadan iyo mas'uul ka tirsan wasaaradda ciyaaraha gobolka Sanaag oo halkaas ka hadlay hadaladoodii kamid ahaa sidan maanta waxaan soo gaaray roogii garoonka oo runtii aan ugu mahadnaqayno wasiirka maaliyadda Samson aad iyo aad boqolkiiba boqol dadkii ka soo shaqeeyay barasaabka koobka yahayna mahad ballaaran baan u jeedinaynaa intii la qorshaysay oo uu ka mid yahay barasaabkii hore Rabaaxna waa ugu mahadnaqaynaa waxaan tacsiir u diraynaa Cabdulxakiim Axmed Maxamuud Cabdulxakiim Wahaabi barasaabkii Badhan waxaa la ku wafaaday Hargeysa waxaan leenahay Allahu naxariisto dadkana sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ilaahayna jannada firdawsa ka waraabiyo waxaanu halkan ugu dabaaldegaynaa garoonkii kubadda cagta oo roog casri ah naloo keenay oo xukuumaddu noogu deeqday anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka Sanaag waxaan halkan mahad ballaaran uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo noogu deeqay garoonka si uu ugu dhiirigeliyo dhalinyarada gobolka waxaan halkan tacsiib uga dirayaa marxuumka gudoomiyihii gobolka Badhan Cabdixakiin Wahaabi waxaan leeyahay samir yeeman Allah inaga siiyo dhamaanteenba waa mas'uul inaga dhintay gobolkuna ka dhintay shacabka reer Soomaaliland oo ka baxay waxaan leeyahay samir yeeman Allah inaga siiyo dhamaanteenba meel kasta aynu joogno shacabka reer Soomaaliland tacsiib aan u diraynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintay samir yeeman Allah ka siiyo waxa maanta na soo gaaraan halka ku rogaynaa wax weeyaan roogii garoonka kubadda cagta waan ku rogaynaa halka waana na soo gaaray waxaan ugu mahadnaqaynaa cidii ka soo shaqeysay iyo cidii bixisay waxa iyaguna halkaas hadallo kooban ka yiri taliyaha aaga saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland Jaraan Musadalaf iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Gaashaana Dhexe Maxamed Cumar Cali waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay roogii la dhigi lahaa garoonka weyn ee Daalo Stadium oo la keenay oo hadda la rogayo oo indhiinta ku aragtaan cid kasta oo ka soo shaqeystay haday tahay wasiirada maaliyadda Samson Cabdi Aadan barasaabka gobolka maayirka barasaabkii hore cid kasta oo gacan nagu siisay waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin maantana waxaan qirayaa inaanu helay garoon standard caalami ah waxaan tacsiir u diraynaa dadka reer Soomaaliland iyo gobolka Sanaag iyo gobolka Badhan oo ka geeriyooday barasaabkii gobolka Badhan Cabdixakiin Wahaabi waxaan leeyahay ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkaba sabir iyo iimaan Allah ka siiyo gobolka iyo degmada u ciyaari doonaayo qolo badan oo booliisku aad kubadda ciyaartana waan soo bandhigi doonaa haddii Allah yiraahdo marka barbarka ka baxda waa bakala qaleen insha Allah ina qalabkana inoo ilaaliyaan la raaci Ceerigaabo inna wa inna raajicuun barasaabkii Badhan samir iyo iimaan Ilaahay naga siiyo xariiso janno Ilaahay dambigiisa ha dhaafayaan leeyahay ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay oo shirkan jaraa'id ka hadlayay ayaa wuxuu yiri halkan maanta waxaa ku rognay roogii casriga ahaa ee garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceerigaabo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiir Samson Cabdi Aadan oo ah wasiirka maaliyadda oo roogan nagu taakulaysay ama nagu caawisay waxaan kale u mahad celinayaa barasaabka gobolka Togdheer ee Maxamuud Suleymaan Ramaax oo runtii aad igala soo shaqeeyay markii dambe aan u wakiishay raridda iyo dejinta waxaan halkan tacsiir tiraayeel uga dirayaa ugu ducaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto marxuum barasaabkii gobolka Badhan Cabdixakiin Wahaabi oo xalayta ku geeriyooday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland Allah ha u naxariisto Ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdaws al-a'la waxaana barasaab Falaay mar uu bulshada kala hadlayay dhinaca nabadgelyada iyo shaqooyin dhawaan ka dhacay deegaano gobolka Sanaag ka tirsan oo intaas ku sii daray halkan nashalayta waa ogeydeen boobkii waan laga soo afjarnay haddana waxaad moodaa in waliba ma garanaysay
nabadii iyo wanaagii iyo maxaan ku idhaahdayay deegaamadii dawladdu ay mamnuucday ee ka caagalaa in la dego in la daaqo mooyaane inaan dadku aanu ku qanacsanay baad moodaa waxaan leenahay war meel kasta oo laga gaaro go'aan sideeda u fulaya way dhaaftay xilligii dadka la baryayay ee waqti badan la siinayay waxaan leenahay wartaana ka taxadira oo sanu shalayba sheegnay 7 maalmood baanu faagaa intay ku jira oo dhan aan u qorsheynay waa go'aan dhuxushiiba iyaduna meel daran maraysa waanu gelaynaa insha Allah biidmilaahi ayaamul qaadima baanu iyadana sahlaa u mari doonaa waxaanu leenahay war nin walba inaan kaaga qabso ninkii qabsan waadow ha dhowto marka ciidamada amar bay qabaane ay dilaan ha dhowta oranin wuxuu ahaa musalli masaajidku ku maqnaa inaan wanaagsan buu ahaa war waxaan leenahay walaalayaal cid meel inooga timi ma jirto nin walba waa inamadaadi in hebel iyo hebel war dhuxusha wax badan baanu ka qaylinay maanta se insha Allah biidmilaahi wixii ka dambeeya cid aan isu imanaa ma jirto waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Ceeri Gaabo